بسم الله الرحمن الرحيم. سو نقد وناكسن أصحابتي قيمة له. أرت حمرة وجدا الله جيدا هو استنفرنا. برواقة سام كجرنا إن معلاس إلى هي النسي. بمشي أسقبو جيدا هاس وستنا اسكفرنا الحمد لله شكر. وحان مالمها كان المغلاي حسوق ولا حال حسوقي. reer hebelaa waxa suuqay dawladdiyaa waxa suuqday xaggaa wax la xasuuqay xaggaa wax laga dilay heblaa waxaas waxaa idin sheegaa xamar meelaan la xasuuqin ama Soomaaliya meelaan xasuuq ka dhicin gobolada dalka meel aan xasuuq ka dhicin iyo meel aan xabaal wadareed oolin horta ma jirto aniga hadda idin hadlaaya waxaan joogaa xaafadda Wardigle waa meesha aan joogo waxaan shaqo ka haynaa wadadaas arkaysaan oo la dhisaayo jidkaas shaqo ka haynaa meesha dhisaayo jidkaas shaqo laga hayo waxaan idin leeyahay soo jeedka darbigaas meeshaas u jeedaan darbigaas u jeedaan meesha mootada marayso waa iskuulkaas Maxamuud Xarbiya la yiraahdaa meesha ay ka muuqato laamiyeeriga iskuulka meesha uu ka muuqdo waxa ka sokeeyo waa دربيان ماشي كحرن سكولك مرهين وضل مريهد واحد دربياس لو خير ماشاس او جيس الا جيس دربيga loogu xiraa waxay tahay waxa ku aasan ugu yaraan 400 oo qof ku aasan meeshaas dad baa ku aasan waa xabaal wadareed دربيga iskuulka waa laga soo sokomariyay waxa lagu soo sokomariyay maadaama meesha ay xabaal tahay ayaa laga soo sokomariyay haddaan maanta aan garab ka saarto ya baalka ilaahay badiilkeyga daan garab ka saarto oon dhawaa suuqada dad dhintay meesha loogu tagaa waxa loo mari waayay baabuurta looga xiray oo darbigaas loo dhisay waxa waaye qabuura ku jira ilaa 400 ilaa 300 oo dada ayaa meeshaas ku aasan haddaad rabtaan waa la soo tusaa waad arkaysiin haye gabdhayga seetil maanta هاي كورم جلاس سكول كورم صح بالرواية دي ما أنا وحام بحنا 10 يا هاي بوك سقط تاريخ جغرافي هاي مركب وحواي الصومالية اللي سعفيه وقولك كستاه وحد يبقاري إلهي أطوبك أنت اللي سعفيه في عن مقالة دلك الصومالي مالك كستا وحكود دوغر حبال وذلذي اللي جهلا أنا قد إيمة ديارة وأفر بس حاجة ويسكولك وأركيسان أفر بقولك قفاق على الوعاصي حلق يو السيدة على الجنة كاس أمش وحبال هذا سوفقه سوفقه لا فعل ده نقطة دبل وقتها مثلا ميدا سو بحش وحارون عديل لسفرفرو واحد بدنا عباد عيسى هنا لسفرفري رجع جبهتها وحان ليه وانت قدودايا SNM iyo SDF iyo USC horta waa kala xasuuq badiyay oo qolo kasta inay xasuuqdo waxaan rabaa marka say wax u dhaceen in la yiraahdo alxamdulillah shukri annaga ilaahay waxaan ugu galadeystay wixii dhacay inaan goobjoog u ahaano maantana waa noolahay waa soo jeednaa indhaheen waa free nimankaas SNM la leeyahay waqooyi galbeed ee Hargeysa jooga ee 24 saac ku haya xasuuqa la geystay waxaan rabaa inaan runta u cadeeyo horta intaan xasuuq dhicin ayagoo koor maxay sameyn jireen waay ayagoo shaalal wata oo qoryaha hoos ku wata ay waxay soo gali jireen magaalada Hargeysa markay magaalada soo galaan waxay leey jireen dadka aqoonta leh ganacsatada culamaa u diinka odayaasha qabaa'ilka eelariska intaas xasuuq jireen markay dilaan kii socialkiisa wato oo qoriga u hulaaban yahay markuu dadka dilo intuu carro qorigiisa soo aasto intuu soo laabto oo intuu wax ka bilaabo adeerkay baa la dilayay abtigay baa la dilayay baa afweynaa dilayay dowladda dishay wax kama jiraan dadka ayaga dil ku bilaabay ayaga xasuuq ku bilaabay waxaa kaloo dhacdoon ognahay
marmar dariiska dawladda inta la soo qaato oo koofi cas la soo qaato ayaa dadka la leen jiray si shacabka loo kiciyo oo la yidhaahdo dadkan waxaa dilay dawladdaa dishay loo yidhaahdo jabhadahaas samay jiray koow waxay ka bilaabtay waqooyi galbeed waxaa ku xigtay SDF aa ku xigtay USC haddana aa bilowday oo xamar ku bilowday meesha hadda aan joogo iskoolka maxamed xarbi geeskiisa laana ku tiilay 3 qofood oo aniga aan qaraabanahay ayaa habeen lagu dilay ayagoo wata koofi guduud iska dhigaya koofiya cas oo tuutiya wata si dadku ogaadaan waxaa la samay jiray koofida ayaa waxaa lagu tegi jiray qofka la dila agtiisa la dhigi jiray subax haddii la soo kaco waxaa leeyahay koofi guduud inshallah koofidu waa tanaa propaganda ay ahayd propaganda dhaqan gashay ahayd jabhadaha ku qaraabi jireen intaas haddii la marka xasuuq habartood iyo adoogood iyo asalkood iyo farcood jabhadaha bilaabay annagoo degan oo nabad haysana oo barwaaqaysan ay fidna bilaabeen kow mid kale la ogaada dalkii oo dhisan oo dawlad ka jirto ayay intay baxeen jabhaduhu madaxdooda ayay waxay la xirteen dawladda Itoobiya oo cadow aan ahayn oo mudiste madaxweyne oo ka yahay oo aad ogtihiin colaadda iyo dagaalada laga dhaxaysay nin la shirkoobay dal cadow kuuga ah shirka la noqday asxaanna dal u geli maaha dhibaatada ugu horreysa sharciga ugu horreysa iyo dhib ugu horreeyay ee nimankaas keeneen waxaa waaye jabhaduhu waxay la soo heshiiyeen amxaaray mataqaana ka soo qaateen waxay ka shaqeeyaan dalka midnimadiisa inay kala gooyaan wax qiil ah oo maanta ay haystaan haba yaraatee ama loogu dulqaadahana ma jirto waxay sheegayaanna waa been jabhaduhu dagaalkooduna xaq ma ahayn xaqdarro wahay xasuuqa wahay dhaco wahay kufsiga wahay booba wahay beeliqo wahay tuuganimay ahayd 29 sano maanta joognaa wixii laga macaashin waa la ogyahay haddii maxamed saad barre oo xumay 29 sano saad barre 21 sano joogay 29 sano jabhadaha noo tilaaye xaal la qabta waaye wixii oo qabta la dabagadiyo hay-adiyaha la bilaqaystay waxaa la bilaqaystay waxbarashadii dukumiintii oo dhan fiilooyinkii korontadii taleefanadii isbitaalladii guryihii beerihii baabuurtii wax la dhaafo male waa la soo gudbay waxaa la gaaray dadkii nool in la afduubto naagihii in xoog lagu arooso bal weydiiya reer xamar wax ku dhaca dadka caddaan maxaa ku dhaca bal weydiiya barqacda inta guryaha laga leeyahay la iska wata duurka la gala masaajidadii inta loo dhacay waxaa laga fuqsaday saacadihii masaajidada ku yeelaa laga fuqsaday inta kutaabada quraanka la iskor saartay oo laga dhigtay jaranjaro masaajidka saacadii ku dhiganeed ala soo fuqsaday waxaas wax dhacay oo cad oo marqaati la waayo oo joogan u ahayd kufsiga la sameeyay nin iyo naag wax dhaaf mare qofkii laga tabar badan yahay waa la kufsay ama asal kufsay nin aado ama naag aado waa la dhacay waa la xoogay waxaa timid wax la yiraahdo ku nasiibso nin bacwata ku nasiibso bash kii hilib wata kii qudaar wata ku qashin iska fogeeyahay bacmadu qashin ku soo qaaday mukulaan inta xal guriga isku baqtiday rab inuu iska fogeeyo xataa waa la dilay waxaa loo heystay inuu lacag haysto war wixii aan aragnay wax laga sheegi kara maahane waxaan leeyahay ibaanka leeyahay gasho hoog iyo dhibaatana jabhada ugu horeysay waana midda maanta aan ku jirno kuwa maanta difaacay waxaan leeyahay waa tuuga aroortay waqooyi galbeedna ee sananta dhibaatada ay dhigtay boorama xasuuq ka dhacay waxaa ka daray markii 1984 diyaaradaha Itoobiya ay garaaceen iskuulka boorame iyo magaalada boorame 400 arday iskuuleeya oo dugsi hoose dhigtaan oo dhar jaallo ah ayaa maalinta diyaaradaha xasuuqeen annaga xamaraan joognay TV-ga kala soconay arkeen meydka dhaawaca waagaas waa xasuustaa waxaa ku soo hogaanshay nimanka madaxda SNM ta ku soo hogaanshay xiligaas madaxda SNM ayaa ku soo hogaamiyay waxa ay qabiga kamid caan waay maantana xasuuq inoo sheega wana xasuuqay wax ka jira male waxaan leeyahay waqooyi galbeed 90% dawladda taageersanta in yar oo hargeysa joogta maahan inta kale gobolka waqooyi waliba gobolka waqooyi galbeed waa naqaan intuu kooban yahay sanaag iyo sool iyo awdal iyo hargeyso inta kale inta hargeysa ka ahayn waxa waaye midnimada Soomaaliya diyaar u burca diyaar u ah oo gobolka Togdheer oo hooda sheekh dulkaas oo dhan waqooyi galbeed inuu gibilay ama kulli dadka jooga waxa wada soo ilaa barab ilaa seen waxay taageersan yihiin midnimada Soomaaliya marka propagandada beelaha la wareegayaan hal iska dhaafo
arrinta shalay shirka dhacana shirka shalay dhacay oo odayaashu meesha ku shiray shirkaas ujeedadiisu waa naqaanaa asagana waxaan rabaa inaan wax ka ogaado ma rabo inaan ku fogaado sababtoo tahay cali mahdi khiyaar hore wahay ma rabo inaan ku fogaado qaraabana waa nahay xididna waa nahay ma rabo inaan ku fogaado laakiin waxaan rabaa inaan u sheego markii dawladda ay ku guulaystay dhismaha galmudug markii arrimihii waqooyi galbeed howshiisa la bilaabay iyo gobolka sool iyo sanaag markii dawladdu u soo jeestay inay wax ka qabato arrinta jubbada hoose kismaayo ayaa si looga furo aag dawladda aag cusub loogu furo ayaa dadkii shalay diidanaa dhismaha galmudug oo aan ka leeyahay somalilan ragga maanta sheeganaya iyo madaxda puntland ayaa abaabulay shirka shalay lagu qabtay meesha la yidhaahdo kaaraan maskaxdooduna kuma imaan caqligooduna kuma imaan garashadooda kuma imaan xoogaa yaroo dhaqaalaah oo nimankaas soo dhiibeen oo imaaraad ka dambeeyo ayaa ujeeddadu ay ahayd keliya in muqdisho aag kale laga furo waxaan leeyahay kuwa maanta u qeeldhaaminaya maqaam 8 sanaad madaxweyne dalka ahaadeen oo ciidina maamuleen maxaad idinkoo dalka gacanta ku hayay 8 sano sheekh shariifna uu ahaa 4 sano maxaan sheegna 4 sano uu ahaa maxaa maqaam muqdisho u geliyeys waa tad cali mataqaana xasan sheekhow dadka xamar ku shiraaya aad xirxiri jirta berigaas gobolka aan dhiso qofka waa tad xiri jirta waa tad amar ka soo saartay wasaaradda arrimaha gudaha oo aad tiri hotel xamar ku yaal oo lagu shiri karaa ma jiro dadku waa tad xirxirtay hoteelada waa tad xirtay nin shirki aan la ogeyn oo la qaban karaa ma jiro intaasna waxaad ka cararaysay in dadka muqdisho ay ka hadlaan ay ka tilintooda iyo maqaam in loo sameeyo adaa shala diiday maanta ma doonayna su'aale maanta qasbi ku doonaysa waxa ay tahay oda cali waxaan leeyahay caliyow waqtigaad madaxda ahaydna wixii aad sameysay kiiski gabadhii wariyaha ahayd ee aleeriya aadbina weli waa furan yahay محر من ولا شيء ذا وليه شقدي وده قضية تاي ولا جا حشوها ترتيبتها هديك له وعاد مريض قتي هذا ما أنت عشان جرا عاد قبيل أدوبت وعاد قبيل كهذا شيء هذا الصومالي وين مدحون نقول هذا أنا قدومي شيء سينته دولتي عبد الله يوسف عاد بضحك هاد أنت سعودي الصومالي كلامي هدي عاد قتل الشوشود ما أنت عاد قبيل دولة قشرة وحواي laga xishoomaa waa la isfaqfaga qof kasta buugeeda la akhriha dib la soo baaraa marka waxaan leeyahay adeer istaaqfurayso waxaad qaadatay waad qaadatay xoogaa badda aad ka qaadatay waad qaadatay ilaahay ka baq daba qaada dhiso guraaga nabad ku joog haddaad hadashana dadan xishoohina jooga waa la warramaa marka anaga hadalsiin dad waaweyn nahay inaan maanta mataqaana isu factiri waa laga fiican yahay ilaahay ka cabso ilaahay u toobakeen hallay cafiyada taasaa ku roon cimri bilisada ku jirtaa masaajid gal tusbax qaado iska wardi intaas war ku soo kooba wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh